halkani waa fagaaraha Funny Football ujeedkeenu waa kaftan sports tobanka ciyaaryahanay abaalmarinta FIFA the best u sharaxan waa lagu dhawaaqay balse aniga dood ayaan qabaa maxay tahay doodaad qabtid aaway Pogba Neymar Kante iyo Rakitic waayahay hadii qof walba midkuu jecel yahay liiska lagu daro uu rabo aniga Lukaku waa la igu daro warkaaga ma na fahmine dheesh ciyaarta ka daa walaalay adiga dheer wado Neymar film Algeria marka lagu soo daray FIFA the best oo hadii ay sidaas tahay Pogba iyo Kante maxaa looga tagay meesha wada Francis miyaa laga dhigayaa Mbappe Griezmann iyo Varane ayaa matalaad ugu filan Francisca uguna wax qabad fiicnaayeen Barcelona waxay dhaheen waxaan helnay ciyaaryahan Neymar iyo Willian isku darsan ah xirfad ahaan oo waa kuwa midkaas amaanta loogu qubeeyay waa Malcolm oo ay kooxda Bordeaux 41 milyan euro kaga soo qaateen wiilkan 22 sano jirka ah jahada ka luminana waligiis xulka Brazil uma ciyaarin sidoo kale la astaanta Champions League ma maqlin xitaa wallahi ninkan inuu halis yahay waxaan ku arkay liigwanka Faransa sida uu cadaraha kaga dhigay isagoo 12 gool dhaliyay 7 goolna caawiyay xil ciyaareedkii hore Masarooge adigana waxaan kaala yaabay markaan dadka iska dhicinayo ayaad xog igu dul akhrisaa waan ku faraxsanahay Liverpool inay dhaqankeena yeelato sidaas waxa yiri tababare Pep Guardiola ee anigu ma dhihin waayahe Guardiola muxuu damacsan yahay Guardiola durba wuxuu dagaal maskaxeed ku bilaabay tababare Jurgen Klopp oo xagaagan 200 oo milyan oo ganiga sterling ah suuqa ku qarash gareeyay war sidaas ma ahan ee Guardiola wuxuu rabaa kooxaha kale inuu ku diro Liverpool horyaalkan Ingiriiska yaan laga lacag badin ayaa koox walba ka dhaadhacsan taageero Arsenal ma tahay ilaa niyada lacagta baqiishay Arsenal Bell waxaan ka hadlayaa in koox walba qarash waali ay bixinayso si in horyaalka lagu bixinayo sida loo kala qarash badan yahay baba Jorginho waa iga dhaxbaxay baasaskiisa ilaa iyo hadda waa ku soo cuscistaa sidii uu kulankiisii koowaad u ciyaaray aniga ka daran Facebook ayaan ku busti gareeyay baasaskii Jorginho sameeyay ee tirada badnaa kulankiisii koowaad waxba lama socotiin kaynti xitaa wuxuu dalbaday in loo keeno ajal uu ku duuban yahay Jorginho baasaska uu sameeyay war anaga bayaab aragnay oo hadda taageerayaasha Chelsea baas ma kaga dhigan tahay ha maxay nooga dhaganaa weysi saaxiib meeqa sana ayaa kooxdeena baas lagu xiiqinayay dagaalna aan ugu jirnay helista kubadda okay ha bilaawdo horyaalka abaalmarinta kooxda ugu baaska badan ayaa Chelsea ahaan la idin siin doona war maya hadda ayaan basiinaynaa biladaas ee masar hadda aan u wacno siiya oo hadda siiya Jorginho ciyaaryahanka ugu baaska badan Premier League masar hadda siiya see amal biladii Chelsea ma Jorginho siisay war Chelsea baas kuma aqoon laakiin Jorginho baaska waan ku aqaanay sidaas darteed ayaan isaga kaliya biladan u siiyay si arooskiisaska fabrigaas looma kala harin ciyaartoy waaweyn iyo waliba xaasaskooda ayaa ka soo qayb galay dumaashiyaal waaweyn ayaan isugu yimid warniyow kaas aroos ma ahayn waxaan dhihi karaa bandhig dumar waayo xidig walba wuxuu hore u soo kaxeystay saaxiibtiisa oo aad u labisan waxay ugu darnayd markuu masraxa soo koray N'Golo Kante oo xiran dabagaab shaati raqiis ah iyo kaba alafandi ah shaatigaas waan xasuustaa waxaan ku ciiday 2005 waliba waxa ay doortay iyadii qubata canshuur oo maalinkaas oo kiyaaleedii ka soo tagtay war ma la waayay wax u soo xiray suud ku guuleysay koobka adduunka ee dhawaan soo ilaaday waxaan u maleeyay in lagu soo wargeliyay arooska isagoo suuqa adeeg u soo doontay sidaasna ugu soo qayb galay Kante labis shaqadiisa maahan oo sidaas ayuu u arkaa labiska ugu dambeeyo u sheeg ninkaas qof la raacdo kubad la eriyo iyo maqas la kaco dhacdooyinka Funny Football kala soco idaacada ciyaaraha FM